bismillaahi raxmaani raxiim. Dhallinyarada Soomaaliyeed oo u dhiganta 3 qayb marka loo dhigo dadka Soomaaliyeed 2 qayb oo ka mid ah inta 25 ka yar ayaa waxay mudan yihiin in ay noqdaan mudnaanta koowaad ee siyaasadda dalka lagu dhaqayo. Maanta sidaa ma aha. Siyaasiyiinta waxaa laga yaabaa inaysan mudnaan u arag. Waa laga yaabaa inaysan priority ugu jirin. Taana maxaa keenay? Waa marka koowaade dhalinta laftooda oon cududooda garanayn. 3 meelood 2 meel awoodda dalka iyo jihada dalka oo dhan inay ayaga mas'uulka ahaadaan bay ahayd. Waa midda labaad waxaa laga yaabaa wacyigii ay ku goosan lahaayeen awooddaasna inay meesha ka maqan tahay. Marka ninkii siyaasi ah oo aan ku xisaabtamin majority-ga dalkana haddii siyaasaddiisu meel dheer ma gaarayso. waxaa laga doonayaa laakiin dhalinyaradu wacyiga ay dhisaan iyo isku duubnida ay ka shaqeeyaan ka sakow in waxyaalo aan ayaamahan anigu aad uga xanuunsado oo dhaqamo ah oo aan ku arkay dhalinyarada oo ku fogaanshaha qabyaaladda ah in ay aad isaga ilaaliyaan. Waga anaga dhalinyaro ahaan soo koraynay ceeb bay ahayd in qabyaaladda maaragtay barnaanka lala yimaado. laakiin dhaqankan cusub ee wajiga lagu soo dhajisanayo qabiilkii runtii arrin aad u foolxun oo dhalinta cududoodana sii kala fogeynaysa, dhalinta cududoodana sii weeqaysa weeye. ka digtoonaada dhaqankaas oo siduu nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam iska daaya bahashaas. waa bahal maaragtay uraysa weeye.